ብታመልጥም ድብደባ ቢኖርም ኮንክሪት የሚባለው የምሽግ አሰራር እንደዚህ ነው። ኦኬ ዋሻ ሰው የሚደበቅበት ወይ መሪ የሚያዋጋበት ምናምን ነው። ስለዚህ እዚህ ሆነው አዋግተው ሊሆን ይችላል። markii ugu horeysay TV-ga dawladda Itoobiya ayaa baahiyay muuqaalo la xiriira xaruntii madaxtooyada ee ismaamulka Tigreega ahaydna halkii ay ku shaqeynayeen maamulkaasi 27 sano ee la soo dhaafay ee magaalada Maqale. muuqaalada la baahiyay waxa ka dhex muuqda dhacdooyin la yaab leh oo ku saabsan xarunta gudaheeda ama in lagu arko xarun maamul ama madaxtooyo. inkastoo xarunta lagu arkay burbur baahsan iyo isku dhexyaac ku salaysnaa xataa hanaanka fariisiga ee xafiisyada, haddana xafiiska madaxweynihii ismaamulkaasi Debretsion Gebremichael waxa lagu arkay calaamada gaarka ee ismaamulku u lahaa. kan Itoobiya oo la jeexjeexa ayaa ka muuqda muuqaalada ay baahiyeen TV-ga dawladda Itoobiya. wariyaha warkan soo tabinayay oo ay weheliyaan saraakiil ciidan ayaa baahiyay in qolo dhulka hoostiisa ku jira oo qarsoodiya ay jiraan, kuwaas oo ilaa 30 mitir ah dhulka hoostiisa. waxay u muuqdaan meelo lagu xiri jiray dadka la ciqaabayo, marna ahaa inay noqdaan dhuufaysyo diyaaradaha dagaalka ee duqeymahooda looga baaqsado. deegaanka Soomaalida ayaa hore godkan oo kale uga qodnaa xabsigii cadaabta Afrika ee jeel ogaadeen, kaasoo dabcan godkaas laga soo minguuriyay kan ku yaala xarunta madaxtooyada ee magaalada Maqale ee ay deganaayeen madaxda Tigreega. habdhaqankan in dhulka hoostiisa xabsiyo laga sameeyo dadkana lagu ciqaabo ayaa ka mid ahay tacadiyada daran ee Itoobiya caanka ku ahayd 30 sano ee la soo dhaafay. sida dhufayskan loo qodana waxay muujinaysaa sida ay horeyba ka talagal ugu lahaayeen kooxdani. sidaasoo kale wariyuhu wuxuu sheegay in duqeymaha diyaaradaha la rumaysan yahay in muddooyinkii u dambeeyay ay gabaad uga ahayd goobtan madaxda TPLF maadaama ay tahay goob dhul ah oo aan yool la liishaamo ahayn. saraakiisha warbaahinta la hadashay waxa ay sheegeen in goobtan ay ka heleen hub fara badan oo lagu qariyay, kama aysan soo bixin wax maxaabiisa, laakiin saldhigyada ciidan ee laga guuray agagaarkooda ayaa laga helay qabuuro waradeedyo dad la laasay, kuwaasoo la rumaysan yahay inay hindad u dhashay qowmiyadaha kale oo laga soo qafaashay goob ka baxsan magaaladan Maqale. አመልጣውንም ተመሳሳይ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያሉት። warbixinta looga hadlayay qasrigii madaxtooyada ee Maqale waxa kale oo lagu sheegay in la bilaqaysay xarunta oo ay falka sameeyeen madaxdii TPLF oo aysan jirin wax shacab ah oo galay xarunta markii ay ka baxeen. waxaa rasaas lagu arkay gidaarada dhismaha iyo waliba wax u muuqday burburin ula kaca. sidaasoo kale ciidanka Itoobiya waxay soo bandhigeen gawaaridii ugu dambeysay ee ay isticmaalayeen kooxda TPLF. waxa ku jira ayay leeyihiin gaarigii gaarka ahaa ee madaxweynihii maamulkaas. waxa kale oo ku jira gaadiid caafimaad oo kooxdu ay uga tagtay ugu dambeyn meel ka mid ah bartamaha buuraleyda ku wareegsan Maqale. halka laga helay gaadiidkan waxa ay u jirtaa halkii la duqeeyay wax ka yar 10 kiiloomitir. baabuurta qaarkoodna waxa ka muuqata dhaawac ama dhiigag muujinaya in dad dhaawaca halkan laga qaaday. ambalaasyada ama baabuurta gargaarka degdega ee goobtan yaallo oo ah in ka badan 10 xabo iyo baabuurta dawladda ee caanka ay ku ahaayeen ayaa goobtan buuxa. halka ay uga baxeen goobtanna waxa lagu sifeynaya inay tahay buuraleyda ku teedsan ayagoo lugeynaya. dhowaan warbaahinta Amxaaradu waxay sheegtay in madaxweynihii ismaamulka Tigreega Debretsion Gebremichael la qabtay, laakiin warkaas ma noqon mid isu soo taray, wuxuuna ku koobnaa oo kaliya maamulka deegaan ka mid ah Amxaarada oo warkaas baahiyay. dhinaca kalena taliye ku-xigeenkii ciidamada waqooyiga ee militariga Itoobiya General Brigade Adam Mengistu oo ka mid ahaa ciidan iyo saraakiil u afduubnaa TPLF ayaa soo badbaaday sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. muddo 30 cisho ka hor ayaa laga afduubay halkii uu deganaa kadib markii la dilay inta badan ilaaladiisii sida ay xilligaas tabisay warbaahinta dawladda. wuxuuna ka mid ahaa in ka badan 120 qof oo isugu jira saraakiil ciidan iyo xubno sarsare oo gabi ahaantoodba weli la rumaysan yahay inay u afduuban yihiin TPLF badankoodna la laayay.